رسول الله صلى الله عليه وسلم محكمة شرفت له وأمها علينا يا أمريكا كوبات مدن قدومي مدن يال بارها حفيز كانت دورة جودة قرنكا أما معمولها فرنسية محكمة الرئيسية وحن ويدين دونا ما دام أبو كاتياشو أي أذف ربناين وقت بدنا يسألوا ويدين سؤال حيرنا أي ويدينين سؤاله قيمة كم إذا أيان ربعين وفافة هي محكمة دهورت هذا كواس أيان كو سنتنان دون تا سؤالها ويدين دون سيدا وكلو ريانا يا وسو قادنا يا أبو كاتي أما قرن محمد حسن أيا كويدي إن أدبارست حفيز كانت دور جودة قرن كوشكتين إن سجال بقول يلحدن شركات أي وأذكتي واحد أجانب تهايد السعودية الجنسية ده أسوأ وجدوا وكلها يا هيد معركتي لعاق شركة لها سوق قاتي إذا سنة وقرنك وها عصبلي هذا بس سؤال عن ربينا محكمة فايس وحيتها هاي بارست هذا مكوجاتي إن سجال بقول يلحدن كشركات أذيك لو قبتي لعاق لقى قبتي للونصدي intii uu agaasimuhu xilka hay ama eedeysanahaasi uu agaasimaha waaxda ahaa oo aan lagu shubin qasnada midaysan dawladda وما سنت أبو الحلالية كورنيل عبد الله كورنيل صبلة العقو قفتي ما ناركين سيدان قرينك وجوابي لكن وحان أركين مددي حلك أوهاي أذيك لقبتي العكتسي عن دولة الله شبن أو أن سو حقيقي وربحين تيدنا عن كسو قرين وما سنتهي warbixintiina waxaad ku sheegteen ama warbixinta aad ku soo sameyseen forensic audit-ka waxaad ku sheegteen in adeega dawladda dayn lagu bixin jiray maxaad ula jeedeen arrintaas baasaboorka fiisaha kor saaran markii aan aragnay taariikhda ku qoran ee tiimbiraysan ee ah la bixiyay warqadda systemka aan ugu tagnay baasaboorka iskaankiisa la bixiyay taariikhda aan ugu tagnay iyo warqadda xilliga lacagta laga qabtay waxa wax badan dabeeyo oo la arki kara warqadda lacag bixinta adeegya la qabtay oo la bixiyay ah lacag qabashadana xilli dabo ah tusaale 9kii bisho kale adeegan la bixiyay 20kii bisho kale lacagta laga qabtay wax noocaas exactly date-kaas hadda warqadda ku qoran yahay xasuusta ma jirto laakiin مثال نوعاسة وما سنتي أبو كات عبد القادر محمد موسى أياكو يجي مجرتا قرال أما وربحين ألو ذاكتين حفيز كا حرلاليه جودة قرنكا مددي أي بارستان صوب العبتي أرنتاس محكمة دوشيك واحد كي جوابيش أدام أي سؤال شاسها يما يكلياه sida warbixinteena ku qoranba xafiiska antidoor guud ee qaranka annaga waxaan la wadaagnay hal warbixin oo haddana maxkamadda hortaala kuna taariikhaysan 20ka Juun 2023 muddadii u dhaxaysay baarista waqtigii la bilaabay ilaa riboodka oo abukaataha ay weydiiyana wax aan la wadaagay oo aan ugu jawaabay ma jirto warbixintaas maxaad kaga hadasheen ama ku soo cadeyseen waxaan kaga hadalnay warbixinta baarista fatashka xafiiska antidoorka guud ee qaranka ee lagu xusay inuu jiro musuq hay'adaha dawladeed kamid ah okay waa ma santahay isla abukaat Cabdiqaadir Maxamed Muuse wuxuu ku weydiiyay ma jirtay mas'uuliyad ka saaran عمر معلم نور دخلي أورورنت حتى ما محكمة دو شرح واجباتك إذا سنة عمر معلم نور كسر نيد دخلي أورورنت عمر معلم نور مجرت مالي واجباتك ومت هاي إنه العقبته وحريه لكن واجباتك سوحي هيك adeegan la qabtay inuu hubiyo lacagtiisa in dawladda loo xareeyo muddadii uu xilka joogay
waxaa jira lacago badan oo dawladda aan loo xareynin mas'uuliyadiisana ahayd inuu hubiyo waxaan rabaa inaan ku weydiiyo maxkamaddan aad u sheegto lacag goorma la xareeyaa dakhli goorma ayaa la xareeyaa dakhliga waxaa la xareeyaa adeega dakhliga waxaa la xareeyaa oo qasnada dawladda la dhigaa ka hor inta aan adeega la bixinin si uusan u noqonin dawladda nidaamka dawladdana deyn kuma shaqeyso waxay ku shaqeysaa habraaca caddaan ama cash base eedaysane cumar macalin nuur anoo jawaabtaas mas-uuliyaddaa sii daba socda maxkamadda u sheeg oo agaasimo ku-xigeenka waaxda ajaanibta ama fiiso kordhinta ahaa maxkamadda u sheeg adeega uu bixinayay inuu ka soo xaroonayay dakhliga aad sheegtay inay ahayd inay qabato wasaaradda maaliyadda lagu shuba qasnada midaysan adeega dawladda waxayba ugu talagashay adeegaas inuu dhaqaalo ugu soo xaroodo oo dakhli ugu soo xaroodo adeeg lacag la-aana ma ahayn adeega dawladda ugu talagashay inuu lacag ka soo xaroodo warbixintiina waxaa ku sheegteen ama warbixinta xafiiska hantidhowraha guud waa forensic lab ama forensic audit aan dhehe forensic audit cafwan abukaate sikriye oo isla saaka su-aal ku weydiinaya wuxuu sheegay maxaad u baari weydeen shirkadaha brefitka ah horta maxkamadda u sharax si kooban warbixin baaristiina ama forensic auditka aad samayseen maxay focus ku ahayd maxay target ku ahayd su-aalahagu waa su-aalo hogaamineed mana liigto su-aalaha hogaamineed sidaa darteed su-aalahii ha iyo may looga jawaabo haddii aad faahfaahin ka rabto qaab faahfaahin looga jawaabo oo aan leedhin ahayn gudoomiye su-aashu xusuusiye maaha xasuusin layskuma hayso laakiin su-aalaha liidhinka xeerka kuuma ogola gudoomiye su-aasheeda lidhin maaha waan ku celinayaa abukaate ma doodaa ka jirta su-aalaha hogaaminta inaad lahayn dood kama jirto soo ma su-aalo furanoo toosa weydii oo aan ahayn hogaaminta laakiin waa xasuusin karaa gudoomiye soo ma anu su-aasha iyo jawaabta uu bixinaya inuu isku xidhaan rabaa ujeedada intaas baa su-aasha maxkamaddu u aragto inay tahay hogaamin waa kaa joojinaya maxkamaddu way mahadsan tahay abukaate sikriye waxa uu ku weydiiyey baadhistiina ma ku jirtay oo baadhis ma ku samayseen shirkadaha loo adeegay ee 960 haddaana qaldanin sidaas ayuu ku weydiiyey maxkamadda u sharax baadhistiinu waxa ay focuska ku ahayd ama ay target garaynaysa ama waxa aad baadheen waa mahadsan tahay waxaan baarnay kordhinta fiisaha hay-adda socdaalka oo loo yaqaano visa extension iyo ruqsadda shaqada ajaaniibta oo loo yaqaano work permit oo ay kala bixiyaan hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda iyo wasaaradda shaqada arrimaha bulshada waa mahadsan tahay abukaate dudaya wuxuu ku weydiiyey su-aalo badan oo haa ee maya ahaa si kooban ayaan kugu weydiinayaa sharaxaad maxkamadda uga bixi noocyada fiisooyinka la qaado iyo qiimooyinkooda ama qiimaha ay kala yihiin haddii aad baaristaada ku ogaatay fiisaha waxaa la qaadaa sanadle oo $800 ah 6 bilood oo $400 ah 3 bilood iyo bille mid walbana wuxuu leeyahay qiimo waxay ku xiran tahay loo adeegaha baahidiisa haddii ay noqoto mid kaste qiimaha $800 wadarta guud $100 wadarta guud ayadana waa heli karnaa waa mahadsan tahay warbixinta waxaad ku sheegteen ama lifaaqa warbixinta waxaa ku socdo isla abukaate duday ku weydiiyey lacag sidaad hadda sheegtayna ka mid ahaa jawaabta aad bixisay inay jiraan lacaga fiisooyin $100 ah maxkamadda u sharax sababta aad warbixinta ugu soo darteen lacagtaas
iyo inta ay la eg tahay labadaba waxaan ugu soo darnay wuxuu ka mid ahaa fiisooyinkii la bixinayay bilahana loo bixiyaa $100 waxaana rabnaa maxkamaddeena waxaan maxkamadda sharafta leh ka codsanaynaa gudoomiye maxkamadda waxaan ka codsanaa inuu si kooban sharaxaad ugaga bixiyo screenka maadaama maadaama wareer abuurtay wareer lacagaha extrada ama lacagaha minuska la socdaan su-aashan hadda weydiiyey iyo su-aal kaloon hadda soo wado oo ah lacagaha ay la socdaan calaamada minusku sababta ay warbixinta ugu jirto inuu abukaatuhu dadweynaha iyo maxkamaddaba hortooda screenka intaan saarno uu ka sharaxo jawaabtooda maxkamadda sharafta waxaan ka codsanaa inay ii ogolaato maadaama su-aalahaasi ay ku soo laalaabanayeen bara سؤالي هور لو ودي مثل سؤالي هور لو ودي واحد سؤالي لو ودي بكم تاه سؤالي لو ودي هديت حل كستا ودي كرتا لكن سؤالها أو باهنتها وسؤالها هور لو ودي إن محكمة أو ودي ستين أكو وافقه قدومي سؤال أو ودي سنة وحواي سؤال إقرارنا ذو وديين وأبوكات الضوء يكسر اللي فردين كوري إنه صفة فاصل sababta ay ku imaatay intuu screen ka saaro abaaruhu ku sharaxo si ay maxkamaddu u fahanto abukaatayaashan u fahmaan dadweynuhuna u fahmo intaasaan maxkamadda ka codsanaya okay waa maasantaa gudoomiye xasan noosar hal sano oo ka mid ah 5 sano نويني مدن قدومي waxaan rabnaa inaan ku hormarno qiimaha fiisaha $100 ah xasan waxaan noo filter gareysaa qiimaha fiisaha meeshaan waxa intaada filteren garin isug hal mar isug hal ka bixin soo weynay hal mar soo weynay filter amount okay halkan waxaa laga wada arki karaa waa column-ka qiimaha $100 $150 $200 $300 $400 $800 waxaa ka bilaabanaa 0 waa wax alla wixii diblomaasi ah ama tabliiq ah dowladda ay u ogolaatay inay waddanka ku soo galaan lacag la'aan iyo ambaasadoorada ku celi $100 sanadka hadda noo furan sanadka hadda noo furan 2022 asiga dhan yaray wadarta guudaa rabnaa control shift up down arrow later okay maxkamaddu waxa hadda halkan ugu muuqato 493 fiiso inay ku jirto 2022 isku darka sanad walbaba in marka saas loo xisaabiyo ayay noqonaysaa fiisa kasto iyo qiimihiisa fiisaha kale hal mar 800 ku dhufo intaada ka gulbin halkaas 800 okay intaada ka gulbin qiimaha $100 oo aad sheegtay 400 iyo jajabkaas in la bixiyo sanadkaas lacagta totalkeeda ma ku jirtaa warbixinta xafiiska hanti dhowraha guud qaranka
fiisa kasta oo meeshaan ku jira ama 100 ha ahaado ama 400 ha ahaado ama 800 ha ahaado si wadar guud ah oo dhameystiran waxa ugu soo qornay warbixinteena waana lacagta base-ka ah meesha ay ka imaatay waana la wada cadahay waa la wada arki karaa waa mahadsantahay waxaan rabnaa oo kale lacagta minus-ka xasan hal lacag oo minus ku jirto okay soo weyne isla hadda fiisihii 100 ahaa hal mar passport number-ka iga soo bilow column-ka column-ka 549 hoos u soco 549 passport number-ka ninkaas Ugandese-ka hoos u soco company-ga uu shaqeey Elite Academy hoos u soco qiimaha fiisaha loo ogolaaday $100 waaye lacagta FMIS-ka wasaaradda ugu jirtana waa $1360 waxaan rabnaa marka inaan halkaas markaan taaganahay halkaa markaad taagan tahay su-aal baan kaa weydiinaynaa marka halkaa markaad taagan tahay maxkamadda u sharax fiisihii waxaa tiri waa $100 FMS-kii ama sanduuqa midaysan ee dowladdana waxaa ugu jira $1360 lacagta dheeriga ah ee cadadkaa leh meesha ay ka timid maxkamadda u sharax iyo sababta ay sanduuqa midaysan ku tagtay baarista aniga aan hadda soo baarayay waxa aan baarayay waa fiisaha maadaama aan baarayay waxa targetka ii saaran tahay warbixintayda aan ku soo qorayo waa fiisaha noocyadiisa kala duwan systemka marka waxa ugu tagay lacag ah $1360 hay-adda socdaalka marka lacagtan ma hayso $1360 lacagta ma hayso hay-adda socdaalka waxay leedahay lacagtaas $100 ah laakiin qofkan $1360 waxaa jirto ganaaxyo laga rabo fiisaha $100 oo bilka laga rabo maahe muddo dheer uusan imaanin hay-adda socdaalka ganaax laga rabaa jiro oo fiisihii la siiyey uu ka dhacay bilaa la siiyey wuu ka dhacay intaasoo lacaga oo fiisa ahaa laga rabaa lacagtaas marka ay systemka dowladda ugu jirto marka laga qaado $260 aniga reportkayga waxa uu aqoonsanayaa inay minus tahay sababtoo ah marka aan la barbar dhigo fiisaha $100 oo aan soo baaray haddii laakiin warbixin baariseedkayga ay isbedesho ay noqoto inaan ganaaxyada iyo fiisihii aan isku soo baaro warbixintayda way ka duwanaanaysaa waxaa imaanaysa $260 oo aan minus ku jirin minuska marka waxa keenay isbarbardhiga $260 oo loo fiiriyay $100 oo fiisaha ah waxaana ka dhiman ganaaxyadii halkaas markay taagan tahay marka bangiga dhexe marka meeshan soo galaya bangiga dhexe 12 milyan uu qabtay oo warbixinta aan ku soo sheegnay waxaa laga heli doonaa lacag ka badan taqriiban 16 17 15 something inuu soo sheego sababta maxaa waaye waxaa jira ganaaxyo oo bangiga dhexe laga heli doono oo aan baaristeedu ku jirin marka taas laga helo marka ma ahan bangiga dhexe inuu qaldan yahay warbixinteedan ay qaldan tahay ee waxa jirto warbixinta xafiiska hantidhowrkan aan ku soo qoray baarista xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka waa ruqsadda iyo fiisaha ganaax kuma jiro ganaax haddii lagu soo daro lacagtaas way isbedeli doontaa lacagta bangiga loogu tagana way isbedeli doontaa waa mahadsantahay markaan soo koobno arno si kooban inaad jawaab uga bixiso lacagta dheeriga ah in fiisada ahayn ee aad sheegtay in lagu ganaaxay qof ajnabi ah oo fiisadii la siintay ka dhacday waddanka gudihiisa joogay ma ku jirtaa lacagtaasi warbixinta xafiiska hantidhowrka guud ee ay ku eedeysan yihiin eedeysanayaashu maya waa caddaynay warbixintana way ku qoran tahay horena waa u sheegnay haddana waa caddaynaynaa lacagtaas minuska ah waa lacag ganaax baarista fiisaha ka mid ma ahan hadday noqotana baaris kale noqonaysaa laakiin maxkamadda hadda warbixinta hortaalo ka mid ma ahan lacagta loo heesta dadkaas eedeysanayaasha حلال كوب حلال وسوكوبا كدومي أبوكات سكري وحكو دي ما أركتي شركة بريفض
oo adeeg loo qabtay oo wadata dukumiinti been abuur ah ها وارك وانا حياه شركات ماشي أوسع سؤال كم ويدين في كذا سؤال شيء أوسع حوي دوكومينتي بين أبورك عن محكمة دهورت هذا قصة بندقني حفيز كهانتي دورك جودة قرنك وحفيز كحير لليه جودة قرنك كسورجي عاد بارس هذا فورانسيك لاب كانت كوجات أنت كنت محكمة دور شرح warbixinada waan ogaado waana hayaa markaan ku dhahay ma ahan waxa maxkamadda kula soo wadaagay waa warbixinteedii qaybaha ay soo martay mid kamid ah hay'adaas ana u tagay shirkadaas kambanigaas ana u tagay kambaniya caan oo wadanka jooga ka shaqeysta waa weydiistay waxaan maxkamadda horteeda laga isticmaalin baar ma rabno waxaan maxkamadda horteeda laga isticmaalin ma rabno maxkamadda horteeda documentigii lagu soo bandhigay ee forensic audit-ka aad ku keentay inteed ka keentay documenti kasta oo maxkamadda u soo gudbinay waxaan ka soo dejinay systemka hay'adda iyo socdaalka jinsiyadda aan cadeeyo documentigan kale marka aan sheegayo qareenadan i weydiiyeen adigana ay weydiisay si xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka ay ugu xaqiiqowdo aan uga xiriiray taas xafiiskan hanti dhowrka ahay ma aha waxyaabihii la soo bay su'aashaan rabo maxkamadda inay u sharaxdo xaway ma jira haddii jirtana maxkamadda inay u sheegtaan rabaa oo u sharaxdo shirkad bareefada dukumiinti been abuur oo aad gacanteeda intaad ka soo qaaday aad maxkamaddana hor keentay xafiiska xirlaha guud ee qarankana ku soo wareejisay ma jirtaa haddii jirtana u sharax maxkamadda waxaan hor keenay oo shirkad aan ka soo qaaday ma jirto waxaan hor keenay system aan kala soo baxay systemka yaa iska leh hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda maxkamadda waa maasan tahay hal su'aal waa gudoomiye hal su'aal سؤالك